السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالقة جنال كيكو حرام ميل كستو جوكتين ولاشين فاطمة كسو دوادا جنال كينا إيا برودكتينا ليا بيوري برودكتس ولا لها وداي تايمركي كوغو هوريسي او جنال كينا ارت إن شاء الله سبسكرايب كنوصار كومنت لايك شير إن شاء الله سوري دوادا كوني كوجر رب الله مبارك عيدن لي هاي waxaan rabaa insha allah qiso yaraan raba inaan ka hadla aan arkay oo aad iyo aad ii argagax gelisay aan aad iyo aad oga naxay runtii intaan qisada idiin galin insha allah hadduu ilaahay raalli ka noqdo maadaama ramadaan lagu jiro haddana iskuuladii ay xiran yihiin insha allah maandhayda iskuuladiina looga laabanaya ilmaha inoogu laabanayaan wixii ka dambeeya insha allah waan soo gali doonaa gabdhaha isoo wacayaan oo ilafaadu maxaa life ku joojisay maadaama ilmihii ay online school qaadanayeen dee markaa waalid tahay wixii waayo inaad ilmihii wax kastaba aad ka hormarisid waxbarashadii number 1 ah marka alxamdulilah maanday iskuul ku laabanayaan hadduu rabbi subxaana watacaala raalli ka noqdo markaas wixii ka dambeeya waan soo gali markaan intaas ooga baxo insha allah walaalahee waxaan arkayay wiil dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo wadanka maraykanka ku laayay wiilal walaaladii ah family soomaaliyeed oo masiibo ka dhex dhacday runtii annaga runtii ma naqaano say wax u dhaceen iyo say wax u jiraan laakiin nin kastaba wuxuu waay si uu wax u sheegayaa ilaahay subxaana watacaala waxaa uga baryayaa intii muslim oo dhibaataysan inuu ilaahay dhib ka dulqaado familkaasna rabbi subxaana watacaala dhibaatada soo wajahday ku dhacday familkaas inta dambeysana waxaan leeyahay inuu ilaahay badbaadiyo inta dhimatayna allah u naxariisto annagana masiibooyinka noocaas rabbi subxaana watacaala dhinaca naga mariyo bal isla fiirsano laba kaliba hayaa ninba noocu uga waramayaa maxay idin la tahay yaase ka warqabo suu arrinkan u dhacay maxaase kalifay inuu wiilasha walaaladii ah uu laayo bal insha allah aan isla fiirsano kadibna waa isku soo noqonaynaa wiilkan waxaa lahaa hanad cabdulcasiis waa wiil dhowr iyo 20 sano jir ah xalay ayuu magaalada Kansas ee dalka Ameerika wuxuu ku toogtay laba wiil oo walaalihiisa oo la kala lahaa Cabdulwaaxid oo 16 sano jir ah iyo Cabdiraxiin oo 12 sano jir ah wararka ay soo gaaray waxay sheegayaan in Cabdiraxiin oo 12 sano jir ah hospital ku jiro dad ay wali nool yahay laakiin waxaa xusid mudan in labada wiil ay ahaayeen laba wiil oo xaafid quraaniyaal ah masaajid loo al-taqwa dadka taraawiix ku tujiyay mar ay gurigood u sii socdaan ayaa walaalkood ka weyn jidka ku helay sidaasna ku toogtay laakiin haddana waxaa dhacday gacan ku dhiig leh hanad oo baxsad ah dhuumashaana ku jiro in booliiska dalka Ameerika ay toogtaan allahu akbar inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa arrin waa qiso aad iyo aad u murug iyo naxtin badan runtii rabbi subxaana watacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa waa bil ramadaan 10kii ugu dambeeya ku jirnaa inuu ilaahay subxaana watacaala annagii intii muslim abo waxaan oo kale uusan tusin intay ku dhacday in ilaahay u naxariisto u gargaaro waad maqlayseen wiilkan ka hadlayo labada kilibka wiilka weyn uu ka hadlayo ninka weyn oo wajigiisana tusaayo waad maqlayseen wiilka walaalihiisu jidka u istaagay markii labadii uu dilay kadib isagana wuxuu u maleeyaa wuxuu dhahay booliiska dilay gacan ku dhiiglaha markii uu baxsaday waa arrin aad iyo aad u naxtin badan maxaase keeni kara inuu wiil familkiisa laayo maxaa dhib uu soo wajahay maxag maskaxiyan u xanuunsanaa ma la abuse gareeyay oo maciil uu qabay ma naqaana ilaahay aa nagu og marka kilibkan kalena aan isla fiirsano isagana wuxuu dhahooyo wiilkan kale oo isagana cod ka soo duubay sababta waxaa la dhahay mar horaa waxaa la ma ogtahay soomaalida wixii waaya ninba siduu wax u maqlo wax u sheegaa annaga ilaa haddeertan ma naqaano cid nooga warrantay cid oo familkaas garanaya maanta naga siinayo warbixin malalaak waxyaalaha socdaan
iyo waxa ku kalifay wiilkan inuu faamilkiisa laayo inay faamilkan Soomaaliyeed islaayaan kulligoodba waxa keenay marka insha Allah wiilkan kalena aan dhageysano taasi waa falkii xalay dhacay laakiin maxaa ka dambeeyay falkan uu dhaco maxaase keenay in qoyskan ay gacmahooda isku laayaan aabe hooyo wiilasha falkaasi oo bilowga ka dhashay kufsi uu aabaha u geystay gabar uu hooyadeed qabo qisada qoyskan ayaa noqonaysa hooyo ninkeedii dhintay oo haysatay 2 caruur oo kala ah wiil iyo gabar ayaa waxaa dumaalay nin la dhashay ninkeedii hore ninkii dambe waxay u dhashay 2 wiil waxay noqdeen reer haysta 4 caruur ah waa labadii hore oo ay hore u soo dhashay iyo labada dambe oo dhalay ninka hooyada dumaalay ninkii hooyada dumaalay ayaa kufsi u geystay gabadhii yareed oo adeerku ahaa sida la sheegay oo waliba xaaskiisu ay dhashay hooyadii ayaa arrintii ogaatay waxaanay ku dacweysay dawladda ninkii markii uu ogaaday in la dacweeyo arrintu ay maxkamadeyn gaartay ayuu dilay hooyadii isagoo u adeegsaday dad gangeysar ah caruurtii uu isagoo aabaha u ahaa iyo kuwii adeerku u ahaa waxa uu dhigay hooyo la'aan ninka waxaa xiray dawladda okay kala waan isla dhageysanaa umaleeyaa wiilkan wuxuu leeyahay waxa keenay hooyada ilma horey lahayd wiilashan waaweyn iyo oo hadda islaayeen gabar la dhalatay la kufsaday waxaana kufsaday ninkii qabay hooyadood inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun qisooyin wixii waaya dhacaan dad badan ay ku dhaceen aan maqalnay sheegayaan marka ma jirtaa mase ma jirto annaga inaan ku dambaabna ma rabno ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa naga og wixii jirana banaanku imaani doonaa maadaama hadeertan dhacdada ay cusub tahay oo xalay ay dhacday arrinkan kollabo intii og oo wax ka og arrinkanna waxaan ka codsanaynaa hoos noogu soo qoro commentiga insha Allah hana loo duceeyo qoyskan Soomaaliyeed oo masiibada ku habsatay ilaahay subxaanahu wa tacaala inta dambana inuu badbaadiyo inta dhimatayna rabbi subxaanahu wa tacaala uu naxariisto hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leenahay is ilaalin kartiin ilaahay goynaa xidka waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay goynaa xidka ahaa qoys kasta oo muslim ah oo Soomaaliyeed ilaahay inuu badbaadiyo wallahi waa qiso aad iyo aad u argagax badan aad iyo aad u naxtin badan aad iyo aad u walwal badan marka ilaahay goynaa xidka ha u gargaaro intaas baan dhihi karnaa maadaama marka walaalahay oo insha Allah u duceeyo qoyskan Soomaaliyeed iyo qoys kasta oo muslim ah oo dhibaato haysto ummadda wixii waay in qarsanayso oo waxa jirta albaabyada ay u xiran yihiin oo dhibaataysan markuu dhibkan oo kale dhaca uu la ogaado marka insha Allah ilaahay goynaa xidka ayagana qoysaskooda uu islaaxiyo aad iyo aad noo idin salaama assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh